inaan Nairobi School Summer Camp taga amba training-ka ka qayb qaataa waxaan oran karayaa saameyntii ugu weyneed abid ay noloshayda ku leedahay haday noqoto waxa weeyaan experience-kan ka soo helay amba khibradan ka soo helay iyo aqoontan ka soo helay maalintan halka ka baxayay Cigaal International Airport waxa weeyaan climate justice iyo mitigation iyo adaptation toona midna ma garanin isbedelka cimilada iyo waxa weeyaan cadaalad u helida maxay tahay mitigation sida caalamku u fikiraan sida loo raadsado climate financial amba waxa weeyaan isbedelka cimilada saa lacag loogu raadsado midna ma ogeyn inaynu barano horta waxaanay tahay climate waa maxayba inaynu barano marka climate kala barto waxa jira wax inagu waxaynu nahay quraanka horta Ilaahay wuxuu ku sheegay in Allah la yuqayyiru ma biqawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim taas macnaheedu waxa weeyaan climate change inuu imaado dad baa keenay gacan bini aadan bay ku timaadeen bismillaah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caways wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan caawa aynu kula faguri doono isbedelka cimilada oo dunida imika aad looga hadal hayo inaguna caawa waxaynu halkan kaga hadli doonaa usbuuca ficilka cimilada haddaba usbuucan ficilka cimilada waxa lagu qabtaa ama waxa loo asteeyay ama uu ajandihiisu yahay waa 4 qodob qodobka koobaad waxa weeyaan ololayaal iyo wacyigelin in la sameeyo oo mudaharaadaynta la sameeyo banaankii loo bixi karo dadkii iyo bulshadii iyo community-gi lagu dhiirigelin karo in usbuucan ficilka cimiladu uu yahay mid saameyntiisa wata qodobka labaad waa geed beeris iyo nadiifin deegaan in geed la beero oo la caadeysto in geedaha la beero si uu wadanku u noqdo mid cagaaran sida oo kale in deegaankii la nadiifiyo lagana guro qashinkii iyo balaastigii aynu isticmaalayna si loo dareemo wiigan inuu yahay wiigii isbedelka cimilada qodobkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa aqoon isweydaarsi iyo doodo sida aynu halkan kaga hadli doonaba caawa waa in ay dhalinyartu isweydaarsato aqoonta ama xogta ay ka hayso isbedelka cimilada sida oo kale ay doodo dhaxmaraan lagana doodo maxaa keenay isbedelka cimilada muxuu adduunka uga yaabiyay isbedelka cimiladu qodobkeena ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa u doodis lagu caadeynayo go'aan qaadashada waayo isbedelka cimiladu waxa uu noqday mid dunida oo dhan ay ka qaylisay waa inaynu noqono dad ka mid ah ama wadanka Soomaaliland waa inuu noqdo wadamada miisaska ku kala jara balaanada go'aanadana ku qaata ee ka mid noqda decision makerska haddaba barnaamijkeenan ku soo dhawaada caawa waxaynu kaga hadli doonaa usbuuca ficilka cimilada haddaba usbuucan waxa uu ina xasuusinayaa isbedelka cimiladu inay tahay mushkilad maanta taagan isla markaana talaabo kasta oo yar qashin qashin dhimista iyo tamar kaydinta cod dalbanaya isbedel iyo qiimo ay leedahay wadajir waxa lagu dhisi karaa mustaqbal cagaaran oo adkaysi leh marka wiigan oo dhanba waxa ay dunida oo dhan u taagantahay ama ay kaga hadlaysaa in la helo madal cagaaran ama deegaan qurux badan oo nadiif ah oo bilaa qashin ah garbahayga haddaba waxa fadhiya 3 dhalinyaro ah oo waliba dumar ah saddexdooduna ay kaga jiraan arrimaha bulshada meelo kala duwan ama sectors kala duwan iyaga ayaan ku soo dhaweyn doonaa imika madasha mid walba bal waxay faahfaahin inaga siin doontaa dhanka ay kaga jirto magaceeda iyo organization-ka ay ka socoto garabkayga waxa fadhidan ku soo dhaweynaya walaashay Hooda Xasan Salaan Hooda ku soo dhawow baan ku leeyahay barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim walaashay deeqaad bay mahadsan tahay magacaygu waa Hooda Xasan Salaan Hooda Hira ku magac dheer Hooda Hira waxaan ka mid ahay dhalinyarta u dooda isbedelka cimilada ama climate activist ah waxaan ka socdaa dalada Sonia Umbrella sidoo kale waxaan ka socdaa GB amba Global Platform-ka wax runtii caawa aad ugu mahad celinaya hay'adda Action Aid isla markaasoo ka qayb qaatay inaan forum-kan halkan iskugu nimaadno isla markaana la fagurno isbedelka cimilada iyo wiiga ku leedahay caalamka waxaan ka soo qayb qaatay oo dhawaan fursad u helay inaan ka qayb qaato Nairobi School Summer Camp kaasoo ah training caalami ah isla markaana lagu tababaro dhalinyarta climate justice-ka amba cadaalad u helida cimilada sidoo kale waxaan chance u helay inaan ka qayb qaato African Youth Assembly sidoo kale waxaan ka qayb qaatay African Climate Summit-kii oo Addis-na ka dhacay intaasi waxa weeyaan wax ka bedeleen hayaankaygi u doodista cimilada isbedelka cimilada marka waxaan ahay u dhaqdhaqaaqe arrimaha cimilada isbedelka cimilada sidoo kale humanitarian defender baan ahay arrimaha xuquuqaha bini'aadamka oo dooda aad bay u mahadsantahay Hoodo intii aad taqaaneen in ka badan inaad barateen baan rajeynayaa waxa dhinacayga bidixyaduna fadhida walaashii Hanicige ku soo dhawow barnaamijka waa tuma Hanicige aad baa mahadsantahay deeqa magacaygu waa Hanicige caawa aad baa ugu faraxsanahay inaan madashan imaado
dadka igu dhageysan doona qaab aan wada joogno iyo qaab igu dhageysanaya online-aba wana mahadcelinaya timeka inugu dhageysanayaan insha allah waxaan rajaynayaa inta aan ku jirno hawada inaan ku kala faa'iideysano waxyaabo fara badan hadda usoo noqday haniciga anigu waxaan ahay youth and climate activista afartii sano u dambeeyay waxaan ka shaqaynayay arrimaha la xidhiidha isbeddelka cimilada sidoo kale gender advocacy-ga iyo more about climate awareness badanka waxay soo baxdaa activity-gan aan qabtay shaqadeedu waxay soo baxdaa xilliyada adag ee lagu jiro abaaraha ee lagu jiro seasoniska Soomaalida ugu adag marka caawa waxaan rajaynayaa inaan information fara badan aynu kala qaadano oo ku saabsan isbeddelka cimilada solution-kii loo heli lahaa iyo waxyaabahaas oo dhan sidoo kale waxaan ka qayb galay sanadkan Nairobi Summer School on Climate Justice oo iyadana lagu lafaguray arrimo badan oo ku saabsan cimilada iyo solutions-kii loo heli lahaa so thank you for having me today okay thank you haniciga aad baad u mahadsan tahay waxa ku sii xigta walaashii Farax Maxamed Carab Farax waa tuma soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجد دقة بحسنتهاي. كل رد سؤال سويدية كفتر كورسية كم تايبا جوادك. صح. مقعد وحوي وفرح محمد عرب. وحكم ده هذا اللي يرد أورد غدا أرمها هوينك يسبدل كعمل هذا. كل مركن لنا أرمها هوينك بالشدة الويس كسر ستيفا واحد هذا دقنا كليه كل احتراء. لكن واحد أفرت السنة جودن بي إلى 6 سنين جودن بي كل احتراء organization اللي هذا السومال لو ministry center. أورد دقائق أرمها هوينك هذا نقطة برشة يشغل جلين تبع sidoo kale marka laga hadlo barnaamijkan isbeddelka cimilada sanadii ugu dambeeyay waliba sanadkan aan ku guda jirnay 2025 waxaanu qabanay activity fara badan oo ay ka mid yihiin aan la qabanay African Activist for Climate Justice ama AACJ mashruuc la dhaho oo isku soo wareysanay documentary kaga duwanay haween ay abaaruhu saameeyeen oo ku nool deegaano kala duwan oo Soomaaliland kamid ah hadda noqotay Hargeysa iyo Gabileyba sidoo kale dawladda sectorkeedii ayaan iyaduna kasoo duubnay iyo maxaa la dhalinyarada u dhaqaaqada arrimaha bulshada sideenoo kale marka farax waa taas aad baad u mahadsan tahay waxaan runtii aad ugu faraxsanahay xubnahayaga halkan fadhiya badankooduba inay ka wada qayb qaateen Nairobi Summer School Camp oo ah shirka ugu caalamisan ee lagaga hadlo cimilada Afrika waxaan rajaynayaa Somaliland Women Resource iyo hani oo ka socota GB ama Global Platform Somaliland Action Aid sidoo kale hoodayadna GB Global Platform Action Aid ka socotaba inaynu si fiican u baranay barnaamijku laba qaybood buu inoo ahaa qaybta hore isbarashada iyo furitaanka barnaamijku intaas ayuu inooga ekaan doonaa waxaynu u geli doonaa qaybtii dhexe ee barnaamijka taasoo ah inaynu bal xubnaha halkan caawa fadhiya ee lagu soo marti qaaday ahna xubnaha ugu firfircoon ay soo xushay caawa madashan barnaamijka cidda soo diyaarisay inaynu su'aalo weydiino su'aalahaasoo ku aadan shirkii ay ka qayb galeen iyo inta ay ku dhex jireenba arrimaha climate-ka waxyaabaha inaga odhan karaan maadaama lagu jiro wiigii isbeddelka cimilada ama wiiga isbeddelka cimilada su'aashayda koobaad maadaama markii hore ka bilaabay bidixdayda midigteedan ka bilaabi doonaa waa faraxo ka socota Somaliland Women Resource su'aashayda koobaad waxay ka oranaysaa faraxay sidee dhalinyarada haweenka loogu dhiiri gelin karaa hogaaminta xalalka cimilada gaar ahaan meelaha abaaruhu saameeyeen aad iyo aad u mahadsan tahay deeqay horta su'aashan aad weydiisay aad bay farxad gelisay waxay waa shaqadeedii waxyaabeen qabanay bay la xiriirdaa haweenka dhalinyarada gaar ahaan ay abaaruhu saameeyeen waxa weeyaan waxa laga qaban karayaa in la siiyo yani in capacity building loo sameeyo iyaga laftirkooda la tababaro oo yani loo sheego isbeddelkan cimiladu inuu ahayn kaliya wax afku laga sheegay uu yahay wax dhab ah oo bulshadeena saameynaya maanta haddii aad tagtid suuqa intaad istagtid istiraadada dhalinyarada ama dadka abaaruhu saameeyeen hal kelmad u sheego dhe yani isbeddelka cimilada waxa laga yaabaa kula yaabaan ku raadaan waxaad wadaa fikir kale iyo yani isbeddelkan cimilada waxaynu aaminsanahay de ereyla iska dhacda ama project base leh laakiin sida xaqiiqada waxa garan kara qof intuu tagay goobtii arkay saameynta ba'an ay dadka ku yeelatay qodobada ugu waaweyn ee laga qaban karo waxa kamid ah in dhalinyaradii lagu tarin gareeyo sidoo kale in la sameeyo space la siiyo ama networking sessions ay bulshadu maxaa la ku wada xiriiraan haweenka gaar ahaan sectorska kala duwan ay ku jiraan ka SWRC ahaan ama ka center ahaan waxyaabaha sameeyna waxa kamid ah in koox qayb qaadanay in aan ku caawino haweenka ay abaaruhu saameeyeen inaanu tagna IDB-yada iyo kale oo u sameeynay wacyigelin sidoo kale markaanu documentary ba aan sanadka hore xusay aanu ka sameynay abaaruhu saameeyeen ugu soo bandhignay bulshadu inay ugu baraarugaan abaartu saameynta ay leedahay marka documentary-ga markaan sameynay waxyaabihii ugu saameynta badnaa runtii very emotional waxa kamid ah waxa la kulanay dad xoolo ay ka baxeen
guryo ay ka baxeen oo aan guri haynin oo xoolihii oo dhan ay ka baxeen sidoo kale intay soo guureen degay magaalada dhinaca yar koonayga guryo yar dad siiyeen si temporary waliba ay u deganaadaan dadka waxa kamid ahaa hooyadaasi waxay tiri waxaan leeyahay aniga gabadheeda cudurba macaan baan leenahay hooyadaas waxay tiri yani waxaan u baxaa inaan suuqa intaan tago oo aan maxaa la dhahdaayay saylada dumarkan xoolaha ariga qabto kale ayay kamid ahay meesha masaafadii soconaysaa waxa weeyaan ilaa dhowr kilomitir oo masaafo aad u fog lacagta ay soo shaqaynaysa income-ka ee ay doonaysa in family-keega ku dibataana waa less than $2 weeyaan markaa saamaynta ballaaran ee saas u leedahay waxa weeyaan inaynu dheeni horta waxaan ku baraarujin lahayn codkayga iyo codkeennaba dhalinyarteena doonayna inaan gaarsiino bulshadeena in horta la tago oo lasoo arko saamaynta dhabta ee abaartu saamaysay sidoo kale waxyaabaha kale qodobada kale ka caawin kareen santar ahaan sameeyno waxa kamid ah networking sessions sameeyno ina soo fight garayno dumarkii maxaa la yiraahdaa santarada qaybaha kala duwan ee bulshada ku jiray haday noqdaan ganacsatadii haday noqdaan dumarkii maxaa la yiraahdaa women activists oo kala ahaa haday noqdaan dhalinyaradii ku jiray waxbarashada ama jaamacadii ama iskuuladii oo ay sameeyaan inay network sameeyaan sidoo kale qodobada kale sameeyno waxa kamid ah inaanu sameeyno community dialogues oo kala ah oonu imkaas bishii imkana dhaaftay oo kale aanu sameeyno dhowr jeer aanu mashruuca aanu ka shaqeynay climate change-ka marka aad buu farabaday laakiin waxa kaliya leeyahay maaha isbedelka cimilada ee saameynta bulshada ku leeyihiin maaha wax in hal qodob ama 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo laga hadli karo waa wax hal qof wax ka qaban kara maanta farxadan raada kaliya wax ka qabanayna ma wax ka qaban karo ama fartinayna wax ka qabanaya oo wax u baahan inaynu bulsho ahaan iyo yaani shakhsiyad ahaan iyo dawlad ahaan iyo dhalinyar ahaan iyo hay'ad ahaan action aid iyo dhamaan hay'adaha kale ama maxalliga ama caalamiga ba ahaadaan in iyadoo qacmaha la haysto wax laga qabto aad baad mahadsantahay farax jawaabteedu waxay koobsanaysaa in lala kulmo dadkii abaartu saameysay oo lagaga hadal meelaha sidoo kale in dawlad iyo shacab iyo dhalinyaraba in haweenkii ay abaaruhu saameeyeen ama meelaha ay abaaruhu ka dhacayaanba in gargaar degdeg la gaarsiiyo aad baad farax u mahadsantahay dhankayga bidix ayaan ku soo noqon doonaa hooday su'aashayda koobaad waxay koranaysaa sidee loo ilaalin karaa haweenka caruurta iyo dadka u nugul marka ay timaado dhibaato cimilada ah walaal deeqay mar labaad oo adiga horta arintan isbedelka cimiladu iyo in deegaanku isbedelo إله سبحانه وتعالى قرآن كيسنا وشيء ما لو قفل بدنا وحلو شيء أنا قرآن كأي وحوين فل بدن إله يسوق كهلا يدي بعتدي أدمه دول كل ينحوري وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أيضا قرآن كاس وحي نعطينا ساعة سيدي بلي آدم لبعتدي دول كوهيا يعني دول كيخربان بس لما كان إلهي وحكسوق جبجبي إنه إلهي يجعل فساد يا إنه دول كوحوين وحلا جبدرو marka waxaan arkaynaa tan iyo ilaa xilligii nabi aadan calayhi salaam inay bili aadanku dhulka waxa weyn degradationkiisa boos u dhacaysa inay iyagu mas'uul ka ahaayeen amba si togan ha uga haadaan amba si taban ha uga haadaan si direct amba si indirect su'aasha wadiisa hadana soo noqdo deeqay waxa weeyaan haweenka iyo caruurta waa dadka ugu nugul aan oran karayno markii isbedel cimilo dhaco iyaga waxa weyn ugu nugul waxaad arkaysaa hooyo waxa weeyaan sidee farax ka dhawaajisay waxa weeyaan la tacaalisa waxa weeyaan isbedelka cimilada ku dhacay oo waxaad arkaysaa ilmo yar oo iskuul dhiganaya oo iskuulkii drop out noqday isla markaana ka baxay sabab keentay waxa weeyaan masaafada uu jiro iskuulkaasi oo kale waxaad arkaysaa hooyo jirkaan soo dhaaminaysa ama dhabarka ku soo qaadaysa taas oo keentay isbedelka cimilada ku dhacay oo waxa weeyaan hooyadaasi haddii ay helayso waxa weeyaan haddii access u helayso inay hesho waxa weeyaan haddii access u heliso may ku soo qaadeen dhabarka marka waxaan arkaynaa dadka ugu nugul amba vulnerable-ka ah in cimiladu isbedesho waa hooyada iyo ubadka waa gabadh iyo caruurba ayaa ah taa maxaa keenaya haddaba idan ka gudubno aynu waxa weeyaan iyaga laftarkooga aynu siyaasad ka lahaano aan waxaan odhan karayaa waxa lagaga gudbi karayaa laba siyaabood in siyaasad qaran laga lahaado isla markaana ka qaybgal bulsho inay bulshadu dhinac ugu soo wada jeesato markaan ku leeyahay in siyaasad qaran lahaado waa inuu qaranku ku xisaabtamo dadka nugul maxaa laga yeelayaa waa inuu qaranku ku xisaabtamo hooyada xooluhu ka barakaceen imka farxinoo sheegasay ee miiga joogta waxa weeyaan seeladii waxa weeyaan markii horeba ganacsiga inta ka tiirsana maxaa laga yeelayaa in siyaasad qaran laga yeesho dadka abaaruhu ku dhaceen kale maxaa laga yeelayaa in policy-ga wadanka lagu daro dadka abaaruhu ka kaceen isla markaana community awareness la sameeyo
dhalinyar bay dhahay alkeenoo fadhina codkeena inagu maanta meel dheer gaariya waxa weeyaan inaga maanta bulshadii u doodi karayna waxa weeyaan dhalinyartu hadba siday tahay u baraarugsan tahay ay wadankaasina u baraarugsan yahay iyo in dhalinyarta wadankaas ee aweer u tahay isla markaana waxa weeyaan dadka xooluhu ka kacayo kale loo sameeyo baaq oo inagoo kale intaynu tagno waxa weeyaan community outreach samayno meelii xooluhu ka kacayeen abaaruhu ka dhaceen oo kale community-ga intaynu gaano aynu ka samayno baaq caalamiya marka in laga lahaado siyaasad qaran isla markaana community-gii waxa weeye lagu bees karayo dhibaatada dhacday aad bay u mahadsan tahay hoodo siday inoo sheegtayba jawaabteedu waxay koobsanaysaa kow horta inay dowladda wadankani ku baraarugsanaato dadka ay abaaruhu saameynayaan oo diyaar loo sii ahaado waqtigii abaaraha waqtigii gugana diyaar loo ahaado waayo inta ugu badan isbedelka cimilada waxa inaga ina khuseeyay ka Soomaaliland ahaan waa laba jeer waa mar ay abaari dhacdo dadkii xoolihii madhaan iyo mar uu roob da'ayo dadkii iyo xoolihiiba la tago marka labadiiba inay siyaasad qaran laga yeesho oo loo diyaariyo ajenda u gaar ah labada xiliba sida oo kale inaga iyo dadka ka shaqeynaya arrimaha bulshada inay si gaar ah u eegaan dadka ay abaaruhu saameeyaan aad ayaad u mahadsantahay hoodo walibana aayad quraan adeegsatay waxaan ku soo noqon doonaa dhankayga midig hani su'aasheeda koobaad waxay ka oranaysaa hani sidee dugsiyada iyo barnaamijyada dhalinyaradu ay u bari karaan bulshada hab nololeed la jaan qaadaya cimilada bismillaah aad baad mahadsantahay deeqa su'aashaadu waa su'aal muhiim ah waxaan doonayaa bal inaan si concise oo dhagaha bulshadana ku reebi karta xusuus inaan uga jawaabo su'aashaas waxa jira horta first and foremost waxa la yiraahdaa climate education inaynu barano horta waxaanay tahay climate waa maxayba inaynu barano marka climate kala barto waxa jira wax inagu waxaynu nahay quraanka horta Ilaahay wuxuu ku sheegay in Allah la yuqayyiru ma biqawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim taas macnaheedu waxa weeyaan climate change inuu imaado dad baa keenay gacan bini aadam bay ku timaadeen gacan bini aadam maadaama ku timaadeen inagu haday nahay Africa gaar ahaan East Africa gaar ahaan Somali waliba Somaliland ay nahay inta ugu yar ee cimiladu inaga saameysay ee imika arki karnaa waxa weeyaan droughtiska consecutive-ka ay sanad walba dhacaya maadaama ay tahay waxa rabaa inaan fahansiiyo bulshada reer Somaliland meel walba ay joogaan iyo Soomaaliya oo dhan waxa la yiraahdo horta climate wuxuu yahay climate waa wax inagu aynu u nahay domains ama waa dad inaga aan ahayn gacan inaga aan ahayn ay sababtay sababaha inagu aynu oran karno 2 iyo 3 waynu kaga qayb qaadan karnaa climate change waxa ka mid ah waxa la yiraahdo deforestation-ka waa waxaan caan ku nahay Soomaali marka la sheegayo oo ah inaynu geedihii jarno kana sameeyno dhuxul amno here caaw halkan kama oranayo deforestation-ka la joojiyo maxaan ku raada it needs waxa u baahan tahay wax alternative aba ku shaqeynaya deforestation-kan aba u noqotay amalkiisi inuu caruurtiisa uga soo saaro quudka ay cunayeen so waxa jira ama aan halka lagu xalin karaa inay bulshadu ka fikirto officialska dawladda ee u qofkan in lagu bedelo shaqada kale uu quudkiisa ka heli karo okay waan fahanay deforestation-ka in lagu bedeli karo shaqooyin kale green jobs lagu bedeli karo so markay dadka horta fahmaan wax climate education la yiraahdo bay ka qaban karaan solution ama ay sameyn karaan any step forward taa marka laga yimaado su'aashaada haddaan u imaado qaababka iskuulada iyo dhalinyarada iyo maxaan ku raad dadkan Soomaalidii ay uga qayb qaadan karaan climate solution ku waxa weeyaan in caruurteeda lagu barbaariyo hortu inay deegaankooda ilaashtaan imika ka dhalinyaro ahaan kahani ahaan 2 bilood ugu dambeysay waxaanu ka qabanay Hargeysa dhexdeeda inaan beerno 360 geed iskuulka maanaan beerin waxaan ka beernay city-ga magaalo cagaaran bay rabnaa Hargeysa cagaaran sidii maayirku yiraahday so 360 ka geed waxaan ku beernay within 2 months أنا إسوا هايستا إن برنامج كيس دح بقوله جيد أو لافيون إن أصله واحد في عم بقابته فواحد تيجي نيروبي سمر سكول واحد شرت واحد لا يلاحظه إثيوبيا ليجاسي أو جرين ليجاسي جا ويب سايت كذا بقضي وحكوا لا within 1 year إن يبران 7 billion وبي it's not حتى 7 billion وجيد إن يبران so أنا قلنا حنا أردي كل فيني يا سدح بقوله جيد أون هرجيسها marka idminis halkii taagan tahay wacyigeenu maanta sidoo kale waxay naga maqan oon rabaa bulshada inaan u cadeeyo wax la yiraahdo ownership-ka ama Soomaaliya waxa ku noqonaysa lahaanshiyo citizenship-ka tusaale ahaan maanta haddaan geed beero oo geedka aan magaalada dhexdeeda ka beero
qofka labaad qofka saddexaad uu jiiraya ama uu jaraya what's the reason waxay tahay dadkan waxa ka maqan waxa la yiraahdo lahaanshihi wadan baanu dareemahaynin imika markaan ka bixiyo waxbarashadaadii transportkaagii waxaagii dhan aan ka bixiyo tomorrow waxaad oranaysaa dawladdu waxay iga bixisay intaas balaan horta u hagaajiyo geedka ay beeraan aanu dhaafo laakiin markaanad ka arkin dawladdaadii anything kaaga soo noqdo waxaad ugu geliso mooyaane that's the reason keenaysa analyze kaasan sameey reasonka keenaya inay dadka ownershipka ku yaraado ma lahaanshihii wadanku ku yaraado waxa weeyaan iyagaan dawladda waxay rabeen ka arkin so taasi waa dood kale laakiin waxaan rabaa inaan bulshada farintayda aan u diray ay noqoto inaynu isku dayno inaynu sameeyno wax la yiraahdo lahaanshiyaha maanta hadaan geed beero adoo waxba ma habeenin kaama dalbanay inaad beerto dad baa jiro ku shaqeynaya inay beeraan oo shaqadoodii la hawga dhigo oo waliba volunteer oo waxba ku helahaynin laakiin markay dadkaasi Hargeysa cagaaran ama magaalo cagaaran ama Soomaaliland cagaaran ay u kacaan please bulshada inta kale garabkooda ahaada maxaad garabkooda ku noqon kartaan inaa ilaalisaan geedaha la beeray I know it takes a long time inaynu Hargeysa cagaaran helno sidoo kale farintaan doonay inaan u diro dadweynaha waxay tahay raali hawda waqti badan ka qaatay waxay tahay waxa jirta wax la yiraahdo waste management process furtana sahablood waxa laga dhisay warshad ku shaqeynaysa amaba wastiga xaradhigta soo saarta waxyaabaha soo dhan recycle ku sameynaysa oo laba kala saaraysa waxa usage iyo waxa la isticmaalahaynin waxaan arkay bulsho fara badan oo Soomaaliland waqtiyadii u dambeeyay ka keenay kacdoon arintaas horta arintaas in kacdoon ay keenaan number 1 waxa sababaya dadku markii la sameeyay warshadaas they was not include the decision making ama kamay mid ahayn xalku wuxuu noqonayaa in bulshadu waxa wanaagsan marka loo sameeyo ay ku raacaan hadaba halka waxa ka soo jeedinaya maxaan ku raada marka la sameeyay warshadaas mid bay ka fikireen dadkii sameeyay oo ah halka ugu dhow iyo ugu macquulsan maanta markaan aad tirahdaan magaalada laga dhex saaro warshadaas waxa ku jira climate awareness kiyo yani wacyigeena Soomaaliyeed halku taagan yahay so marka la yiraahdo warshadan laga dhex saaro magaaladii ee laga dhex saarayo halkii horta ugu appropriate sanaad ee ugu saxsaneed baa laga sameeyay laana waa halkii laga helay qashinka maanta marka rabo ina warshadani ay xaradhigtu dhiiga ay soo saarto ay recycle garayso dhiiga xagan kale halkii aan ka helay baan digiya maaha so waxa rabaa inay bulshadu fahanto inta positive ka ah inta wanaagsan ee ay soo kordhinayso maxaan ku dhaw warshadani aad buu ku mahadsantahay deeqa I think waa ku leeyahay su'aashaadina ka jawaab adiga inay mudan walaashii haniyay meelo badan bad ka taabatay su'aashaaduna iyadaaba meelo badan taabanaysay sida aad sheegtay wadamada jaarkeena ah wadad base ka dhisan يعني إنجا قفك civic education ما بهايستبا أو قفك سجيبان civic education هلينا ومركا عرورتي سكول كوحلا قدقيا المهم وحلا قدقيا وضمك لا لاقى شكيا that's why بكين ستهريب كي جيت كي إني تشران إن أنا ودن كي مركا مظاهرات دعو هو يدير كاريون كموسك كويس تلاقى تشيرو مركا civic education باينا جمقان تا إن لقدرة dadka waxa tiri in ay decision makers ka noqdaan waa in cidda marka waxa bulshada u qabanaysa wuxuu soo kordhinaysa waa in bulshada wax ka weydiis waa bulshadeen waa bulsho oral society ah marka waa in lagu yiraahdo halkan waxana laga sameeynaya idinku sideen idin yahay saasi decision makers kaga mid noqon doona fariintaada waxaan rajeynayaa inay bulshada iyo dhalinyartuba inay weeleeyaan ay maxay hayday lagu dhaqmana insha Allah aad baad u mahadsan tahay su'aashaydii labaad ayaan u noqon doonaa dhanka iyo midigta waxaan la hadlayaa walaashay Farax su'aashayda labaad ahna su'aashayda ugu dambaysa maxaa loo baahan yahay si bulshooyinka iyo siyaasiyiintu u taageeraan hindisayaasha ay haweenka hogaamiyaan maxaynu u baahannahay marka aynu bulsho iyo siyaasiyiin taageersan hindisayaasha waxa weeyaan dadkii abuurayay in climate-kii laga shaqeeyo in la ilaaliyo in deegaankii la nadiifiyo sidee bay u taageeri karaan inay ugana mid noqon karaan haweenku markay wax hogaaminayaan aad iyo ma santahay walaasha deeqay su'aal muhiim ah horta runtii waxaad weydiisay dhanka haweenkaadi la kacday marka horta waxaynu u baahannahay inaynu helno matalaad meelaha miiska lagu jaangooynayo siyaasadda haday noqoto siyaasadaha isbedelka cimilada iyo siyaasadaha guud ee wadankaba meel ba lagu jaangooyayo waxa weeyaan aadna matalaadana kuma haysano waxaynu ognahay maanta inay 80 mudana dhex fadhiya golina baarlamaanka hal gabadho dumar ma joogto markaas aynu taa uga waaqsano waxaynu u baahannahay doorasho aynu ugu soo aadan 2026 dumar badan bay noo sharaxan inaynu dumarka support gareyno
dumarkaasi markay noo fadhiistaan baarlamaanka hadhowtolo waxa weeyaan waxay noo dareemayaan baahiyii dumarka oo dhan bay dareemayaan in ka badan tan raggu dareemayaan ma aha macni inaan raggii ka soo horjeedno waxa weeyaan الرجال قوامون على النساء مسلمين ناي رج وين تاجر سنهاي لكن سين متلادي دمر كانوا هالنوع حنو بهنا إنه دمر كاس عين لصوب حنا سيدا كلام حنو بهنا هاي إنه نقص كنا مسترن بلشاهان هذا نقص دليرهان دمرهان هاي محل جاك وانترناشنال كاي نقص كنا مسترن إنه دنعنا إنه ذلك جري إنه سيدا إنه هي اللي هين دمر كاي إنه متليا سنتر كائمك وحنا صمينا barnaamijyadeen horena ugu dhawaajiyay barnaamijyada networking session sahayo soo casuuminay haweenka u taagan xildhibaanada 2016 ama ilaa xildhibaanadii hore si ay ajandahooga iyo barnaamijyada cimilada iyo saameynta ay ku leedahay dumarka waxa uga meel ay ula wadaagaan dhalinyaradii kale imika waxa soo kala xasaminaa dumarka ah social influencerska inay centerku aanu sameynay awards يعني صدقوا هبلات بايم كابشي شو كله لقوا ترين جراي برنامج كان اسمه دلك عملة تضبط هبلات حويه وهبلها سوشيال ميديا إنفلونسرز كا عقب إذا وريد إنه وين فان رياضة كله يلي هبلات كله عقب إذا أويرس قاتي هبلها وحلو ترين جراي سيدي يقولوا فتركوا يوسي جود بالهاين برنامج كان عملة مركا دقيقة حنكسو كوبي يعني كسي ديرانين هرتا يعني هالقف إيو لبقف إيو يعني waxba kama qaban karayaan saameynta cimilada ee aadka u balaaran inagoo isku duuban baynu wax ka bedeli karnaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu siyaasadda doorashada 2016 soo socotay inuu qacmeena yani ku bedeli doono inuu dumar matalaada ku yeelan doono insha Allah aad baad u mahadsan tahay baaqeedu wuxuu noqonayaa farax su'aashaynu weydiinay in dumarkaynu inoo sharaxanaynu u codeyno ma aha inaynu ragga ka soo horjeedno sida ay ka dhawaajisay laakiin way uga nugul yihiin marka la eego baahiyihii dumarka maadaama inta ugu badan isbedelka cimiladu uu dumar ku dhaco oo marka tusaale miigii la joogo la eraa waa la guurayaayo waxa dhacay in blayskan laga tago blays kale la tago hawsha ugu badan hooyadii ku dhacda raggu alaabtii la diyaariyay bay rarayaan marka waan rajaynayaa dumarka badan ee sanadkan sharaxan inaga oo aan eegaynin qabiil iyo inaynu ragga nacabnahayba inaynu u codeyno ka dumar ahaan si aynaan hadhow u cabanin inaan odhan nimankiiba meesha ku badan iyo raggiiba waxba qaban waay aad baad u mahadsantahay farax su'aashayda ugu dambaysa in hoodo weydiinaya waxa weeyaan hooday sidee ayay dhalinyaradu uga qayb qaadan karaan barnaamijyada waxaad noo sheegtay inaad sanadkan ka mid ahayd dadkii ka qayb qaatay Nairobi Summer School si ay wax uga faa'iidaan horta deeqay caaw waxaan ku faraxsanahay intaan su'aashayda gudbin inaynu miiska ku fadhino intaas oo hablood kaaga darane hablaha inta ugu badan waxaanu ka qayb qaadanay Nairobi School Summer Camp kaas oo ah training caalami ah isla markaana dadka wacyiga kor loogu qaado climate justice-ka amba cadaaladu helada cimilada waxaan ku faraxsanahay hablihii ugu badnaa in ay habluhu kaba badnaayeen inamada waxa weeyaan numberka hablaha matalayay haday Soomaali noqoto iyo haday caalam kale noqoto inay ka badnaayeen numberka inamada taasina runtii waxay ku tusaysaa farxad aad u weyn oo maadaama dumarku iyagu vulnerable yihiin amba waxa weyn dhibanayaasha ugu waaweyn u yihiin isla markaana in lagu arko goobayaasha traininada caalamiga laga hadlayo climate justice kana iyagu ugu bataan runtii waxaan oran karayaa waa guul weyn iyo farxad weyn haddaan taa kaga soo gudbo runtii inaan Nairobi School Summer Camp taga amba traininka ka qayb qaata waxaan oran karayaa saameyntii ugu weyneed abid ay noloshayda ku leedahay haday noqoto waxa weeyaan experience kan ka soo helay amba khibradan ka soo helay iyo aqoontan ka soo helay maalintan halka ka baxayay Cigaal International Airport waxa weeyaan climate justice iyo mitigation iyo adaptation toona midna ma garanin isbedelka cimilada iyo waxa weeyaan cadaaladu helida maxay tahay mitigation sida caalamku u fikiraan sida loo raadsado climate financial amba waxa weeyaan isbedelka cimilada saa lacag loogu raadsado midna ma ogeyn waxaan soo bartay baan oran karayaa wixii ugu fiicnaa noloshayda inta noolaa haday noqoto hayaankayga isbedelka cimilada waxaan soo bartay dhalinyaro sida u fikirayaan runtii wadankooda ugu fikirayaan isla markaana ay ka go'an tahay waxa weeyaan waxay u imaadeen iyo waxay doonayaan waxaan soo helay khibrad isla markaana runtii 10 sanadeen oran karaya deeqay soo socda noloshayda wax way ka bedeli doontaa haday noqoto dhaqdhaqaaqa isbedelka cimilada waxaan la kulmay dhalinyaro wadankooda inay wax ka geystaan jecel runtii sida u fikirayaan waxay miiska keenayaan sida u doodayaan aragtiyaha qabaan intuba waxa weeyaan waxay ahaayeen mid runtii aniga dhiirigelin noqotay isla markaana ka badashay hayaanka markii hore wuxuu fikirayay
waxaan oran karayaa hal mid maadaama su'aasheedii ugu dambeysay tahay halkan waxaan baaq uga dirayaa waxa weeyaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan leeyahay dhalinyarteen waxay u baahan yihiin inay caalamka tagaan inay arkaan waxa weeyaan miisaska wax lagu kala goynayo isla markaana ay ka qayb galaan banaalada caalamiga ee lagaga hadlayo isbeddelka cimilada waxaan leeyahay haddaan xataa wax kale la awoodeen sanad kasta waa in la diro hal qof ama laba qof isla markaana inagu matala shirarka caalamiga iyo tareenada si ay dhalinyarteenu wacyigan ka baxsan kan imika ay ku jiraan way markaad wadankii ka baxdid waxaad arkaysaa waxa weeyaan intaas oo qof oo kala duwan waxaad arkaysaa intaas oo dhalinyaro kala duwan mid walba sidoo fikiraya ka kale ka duwan tahay marka waxa la leeyahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dhalinyartu intay halkan joogaan iyaga laftarkooda waxay iskuma kordhin karayaan inay dhalinyarta dirto waxa weeyaan sanadkii iyaga laftarkeedu budgetkeeda ama miisaaniyadeeda ku darsato in laba amba saddex dhalinyaro sanad kasta la diro isla markaana ay ka qayb qaataan shirarka caalamiga aadama adiga aad u mudan hooda aad bay u mahadsan tahay runtii waxaan ka mid ahaa dadkii safarka hooda kula jiray sidaa ay sheegtayba dhalinyaradaasi inaga waxa laga yaabaa maanta haddii la yidhaha wasaaradba wax qabanaysa inaynu markiiba ka fikirno benefit maxaa kaa soo gelaya laakiin iyagu dhalinyaro waxaasoo dhan waxay ahaayeen maskaxdooda ay ka saaran tahay oo runtii caagad yar haddii markaan tagno caagad yar la turo hadda waa Ethiopia ka odhanay maxaad caagadda xaggan ugu turtay waayo caagadda iyo bacdu saamaynta ay leeyihiin ma malaysa bacdu 50 sano ay dhulka hoostiisa ku jirta ka waran dadkeena dalxiisayaasha markay tagaan berbera ama goobahan imika lagu soo caweeyo magaalada ka yara baxsan waxa wax lagu cuno waa lagaga imaadaa bacdaasi hadday gasho ka waran bal badda dhinaceeda ay xayawaanka hoosta inoogu jira khayraadkeena dabiiciga ay cunaan saasay ku dhimanayaan hoostiiba inaga marka hadda is curyaaminayna marka waxay ahaayeen dhalinyaro aad iyo aad runtii anaga aan khibrad far badan kala iman aadna noo soo jeetay dhaqankooda iyo ficilkoodaba sida ay hooda sheegtay waa in gacan weyn laga geysto arrimaha dhalinyarada gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda deegaanka maadaama dunida dhan maanta ay u dhaqdhaqaaqayso isbeddelka cimilada oo dunidoo dhanba ka yaabiyay aad baad u mahadsan tahay hoodo su'aashayda ugu dambaysa ayaa waxaan weydiinayaa hani su'aashayda ugu dambaysa waxa weeyaan barnaamij noocee ah oo ay dhalinyaro hogaamiyeen ayaa adiga ku hirgalay ama aad si fiican inta kugu kala kacay intaad ka qayb gashay yacnihi aad ka keentay guulo waaweyn aad ka soo hoysay khibrad weyn aad kala timiday aad ku bedeshay dhalinyartaadii iyo waddankaagii markaad dib ugu soo noqotay maxaase laga baran karaa barnaamijyada noocaasa aad baa mahadsantay deeqa I think waxay ugu dambeysay waan hadal badanay sax waxaan jawaab ku siin karaa horta wax kasta oo la yiraahdo youth led initiative oo wax guuleysta youth led initiative waxaan ka wadaa wax kasta oo ay dhalinyaro wado barnaamijyada anu kuma badnay inaan waddanka ka baxo laakiin waxa aan inta badan wax ku dhigtaa ama baan kaga qayb galaa wax la yiraahdo hybrid waxa jiray barnaamij USA ka dhacay Mareykanka kaasoo la yiraahdo FXP waanaan u recommend gareynaya dhalinyarada xiisada climate-ka inay ka qayb galaan waa annual waana sanadle FXP climate advocates waxa weeyaan barnaamij lagaga hadlayo isbeddelka cimilada barnaamijkaasi waa barnaamijka ugu qiimaha badnaa inta aan ka qayb galay barnaamij cimilo ku saabsan cimilada waayda aan kala duwan tahay broad categorieska ama qaybaha la qaadanayo ama trackska la qaadanayo hadana waa waxyaabahan ka bedelay maxaan ku raad perspective-kii iyo qaabkii aan u dhaqmi jiray marka la imaado qaybta bulshada markaanu soo dhameysanay barnaamijka FXP waxaan bilownay wada bilownay Awdal Youth Charity halkan waan uga hambaleynayaa shaqo fiican bay qabteen markii lagu jiray abaari 2023ga shaqo amazing bay ka qabteen waddanka dhexdiisa oo isugu jira 100,000 oo qoys inay siiyeen survival life and things waxaan recommend gareynayaa hadalkayga ugu dambeeya inay dhalinyaradu ka qayb qaataan golayaasha caalamiga ee lagu gorfaynayo wax kasta oo la xidhiidha youthka أنا ودي الملهي climate كليا كوسا كوبا شورنيجينا climate كغيب قطع advocacy gender when it comes about education everywhere أقونت ملول بود كهليسان وحن ودن بيسينا يا مهل علين دق أو moderator هيد and I want to say something sentence for Action Aid and GB and thank you for having us today, tonight for this podcast. And I'm happy to share with our ideas when it comes from the Nairobi Summer School and all our worldwide experiences. So today we have shared a lot of things with the community. We have shared a lot of things with the decision makers, with the government officials, with the NGOs, with the local NGOs. So we wish that our talk, our advocacy and our awareness will be something that can be acceptable and can bring a change into real life examples. So thank you today.
thank you too aad baad u mahadsantahay hani runtii waxay ka mid ahayd dhalinyaradii aanu baxnay dhalinyaradii ugu firfircoonayd marka la eego xataa dhanka siyaasadda aad Somaliland u buunbuuninaysa inaad meediyaha ku aragteen baa laga yaabaa su'aal haddii su'aashu kuma koobna uun isbeddelkii cimilada safarra laga qayb galay safarkan seed ku heshay seen uga qayb gali karaa maxaad ka soo faa'iiday isbeddelka cimiladu muxuu yahay dhinacaan kaga biiri karaa seen uga advocate garayn karaa anyone question is marka ama anything ka dhex guuxaya you can ask yes recommendation baad bixin kartaa kolley dheerayn maayo laba su'aalood baan weydiinayaa su'aasha koobaad waxaan gaar u weydiinayaa hani waxaan ku weydiinayaa adigoo nooga faa'iideynaya experience-kaaga badan aad u leedahay cimilada waxaan ognahay cidda ugu badan ay saameyso marka dalkeena la joogo inay yihiin dadka xoolo dhaqatada ee miyada ku nool marka muxuu yahay xalalka aad u keeni lahayd ama aad xusi lahayd dadka xoolo dhaqatada ay saameyso isbeddelka cimiladu mid kalena waxaan u weydiinayaa general kolley waxaan dareensanahay marka la joogo cimilada iyo saameynta ay ku leedahay wadankeena dhalinyaradeena iyo bulshadeena inaanay aqoon badan jirin waayo haddii aqoon badan jiri lahayd wax badan bayn ka hortegi lahayn oo inagu saameyno marka maxaa xusi kartaa ama qaababkee bayn odhan karnaa in waxbarashada Somaliland loogu dari karo si dhalinyarada wacyigoodii uu uga qayb qaato oo aqoontoodu siyaado oo xalalkii inoogu soo dhawaadaan sidee baa aynu ugu dari karnaa waxbarashada ama maxaa xusi lahaydeen aad baa u mahadsantihiin waan salaamayaa waxaan ka socdaa Somaliland Women's Resource Center magacaygu waa Salma dhalinyarteenu su'aalu anu waa awareness abo waxaan qoon kartaa su'aal labadaba dhalinyarteenu waxay ka qayb gashaa sayno tahay hablaha kale bay noo sheeganaya aduguba barnaamijyo badan oo caalamka ka dhaca amba kalama jeesahato amba wax kala haato sideeba inaga marka dalkeena joogno u sameey karnaa barnaamijyo noocaas oo kale oo inagu isku abaabuli karnaa inagu dawladeena kaashanayna dadyo kale inagala soo qayb gali karaan su'aasha kale wada waxay tahay aan waxaan ku guuleystay maandhow barnaamij dooxa oo ka hadlaya change-makerska dhalinyarta adduunka waxa laga hadlayo climate change-ka wadamada soo horumaraya si uu horumar lahaayeen wakaas inta su'aasheeda ku kooban maasanti magacayga horta waa idil Cabdi Cabdiraxmaan aad baan ugu faraxsanahay inaan igala soo qayb galay codka jeedinaysaan oo dhalinyarada u bandhigaysaan sidoo kale cimiladana aad baan u daneeyaa oo wan la socda cimilooyinka changeskiisa dhaca iyo way noo saameeyaan xagiina markaad ka hadlayseen xaga women's leadershipkeeda markaad ka hadlayseen hal su'aal baan igu weydiinayaa waxaad tirahdeen samaha gabadhu waa inaad gabadh loo doortaa si ay uga qayb qaadato hawlahan cimilada changeska si uga qayb qaadato wagi waxaad ii sheegtaa doorka gaarka ay haweenku muhiim ugu yihiin si loogu doorto cimiladaas iyo maxaa ka dhigi kara dumarku inay ka qayb qaataan cimilada changeska dhacay iyo mashruucooyinka yar ee ugu muhiimsan ay ka qayb qaadan karaan dhinac kale su'aal kale dhinac kale ka socotayaduna oo ah xagga siyaasadda policies-ka iyo partnershipka waxaan igu weydiinayaa sidee bay dawladda iyo NGO-yada iyo hawlaha siyaasaddu uga qayb qaadan karaan cimiladan ay ugu xalin karaan like sidee bay u xalin karaan cimilada change-ka iyagoo la qayb qaadanayaan hay'adihiis la qayb qaadanayaan dawladdiina la qayb qaadanayaan si way soo noqnoqdeen wax soo noqnoqda right so waxaan rabnaa waxaan xalino so NGO-yadii waxa la rabaa inay ka qayb qaataan dawladdeenu inay wax ka wada qayb qaataan so sidee bay hawlaha yar uga wada qaaban karaan that's it labadaas su'aalood baan weydiiyay magacaygu waa Nuura Jaac Maxamed dhamaantiin waan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u mahad celinayaa groupkan ay ka mid tahay Farax oo nagu soo casuumay madashan habliina kalena aad iyo aad waan salaamayaa su'aal baan filayaa yaro kooban inay noqon karayso su'aashan qaba maadaama tiraahday waxaan ka qayb galnay shirar caalamiya hana iyo labada hablood kale faa'iidooyinkii iyo feedback-yadii ana sidee baad ula wadaagtaan maxaa la jiray faa'iidooyinkii aad ka soo hesheen shirarka caalamiga wadankeena oo aad dhalinyarada uga faa'iideysaan aan iyagu ka qayb galin shirarkaas oo kale aad buu mahadsantiin xabiibati horta dhamaantiin waan wada salaamayaa
magacayga waa Sanda Jure Laadan waxaan ka socdaa Women's Resource Center haddaan su-aasheeda u soo noqdo 2 su'aalood baan idin wadaa su-aasha koowaad waxa weeyaan imika waxaad tidhaahdeen climate isbeddel marka la sameynayo haddaynu dhalinyaro ahaan si volunteer u shaqayno dadkeena amba caruurteena amba dadkeena waaweynaa oo kale lahaanshiibaa ka maqan oo imika dhir oo kale haddaynu beerno lama daryeelayo markaas sidee weyn wacyigelin u samayn karnaa su-aasheeda labaad waxa weeyaan habliina saddexda hane iyo deeqa iyo hoodo waxaad ka soo qayb qaadateen shirar caalamiya markaa shirarka caalamigaas ee dhalinyarteena uga qayb qaadato faa'iidooyin ma bixiseen talooyin u fududaynaya si uga qayb qaadan lahaayeen waa sidan ku wadayba aad baad mahadsantihiin shantiina xubnoodba su-aalahaadna weydiiseen waxaana rajaynayaa sida ugu macquulsan ama xog ay uga hayaan inay uga jawaabaan xubnaha baanalka inoo fadhiyaana su-aalaheeda waxaan siin doonaa Farax oo ka socota Somaliland Women Resource Farax door noocee ah baynu uga baahannahay sidaynu hore uga dhawaajino xiniir dumarku waa inay ku soo biiraan golaha baarlamaanka door noocee ah bay ka ciyaari karayaan haddii ay imaadaan waa su-aasha ugu horreysay lagu weydiiyey aad iyo aad baad u mahadsantahay deeqaa sidoo kale idinna aad iyo aad bay mahadsantahay su-aashaasina weydiisay dumarku horta waxa weeyaan waa hooyadii gurigay ka soo baxaysaa yacni wax kasta oo guriga ka dhacaya way ogtahay markaan ka hadlno dumarku hadday ay noo tagaan baarlamaankii waxa weeyaan waxay dareemayaan yacni beeskii wax kasta ka dareemayaan in ka badan raggu dareemayaan macni ma raggu ma dareemayaan laakiin dumarkii waxa weeyaan iyagu waxa weeyaan markasta beeskii nolosha imika tusaale ahaan oo kale dadka abaaruhu saameeyeen oo kale markay deegaanadoodii ka soo baxaan ay IDPskii degaan hooyadiiba haddana isku dayaysa inay noloshii ka fargarayso oo waa tanta suuqa u baxda iyadii haddana ay seeladii tagto neef xoolaa 10 kun oo shilin ku qabanaysaa iyadoo xanuun la nool maanta oo dhan u taagan si ay caruurteeda iyo awlaadeeda ay u kafayso taasi waa dumar markaas saas laajigeed waxaan leenahay haddii maanta dumar lasoo doorto dumarkii waxa weeyaan damoor yani inta ragga ka badan ayaabay la socotaa nolosha asaasiga dumarka marka inta ugu badan dumarku waxa weeyaan kuwa cawdaana waa inaga uun kuwa hadda toole iraahda dumarka lama doortay ragga cadaadiyana waa inaga uun haddana kuwa iraahda dumarku maxay qabanayaan waa isla inaga uun marka waxaynu u baahanahay inaynu dumarka soo sharaxaya iyaga laftirkooda inay ajandooga la wadaagaan waxay ka qabanayaan isbedelada cimilada iyo dumarka ay saameeyeen sida dumarada IDP-ga ku nool ee imka vulnerable-ka xaaladoodu ay aad ka u jilicsan tahay saas laajiga dumarkii inaguna waxaynu u baahanahay ka dumar ahaan support gareeno dumarkaas hadda toole marka ajandii meesha miiska lagu jiray siyaasadda ay tagaan inay inagala shaqeeyaan arrimaha isbedelka cimilada iyo meesha lagu jaangoynay aad baad mahadsantahay Farax hani su-aashaadii aad baad mahadsantahay deeqa iyo xubnaha su-aalaha weydiiyey waan soo koobaya su-aalaha way is wada hoostagayaan jawaabahoodu marka waxaan rabaa inaan ka jawaabo dadka ay saamaysay abaartu maxay u tari karaan dadkan kale 2 qodob 3 qodob baan ku soo koobaya horta kow abaartu climate change waxay saamaysay dadka badana xoolo dhaqatada bay xoog u saameysaa qof kasta way taabatay laakiin dadkaas ay saameysaa dadka xalalka koobaad ee loo sameyn kara waxa weeyaan waxa jira wax la yiraahdo drought resistance planting amaba dhirta u adkaysata abaarta dhirtaasi waxay survive gareyn kartaa noloshoodii nolosha livestock iyo xoolahan ay dhaqanayaan iyo waxyaabahaas oo dhan sidoo kale waxa jira ama inaga maqan fikirka seerayaasha hore waa loo sameeyay laakiin kacdoona far badan baa ka dhacay bulshada xoolo dhaqatada laakiin haddana maadaama ay drought-ku tahay wax consecutive oo soo noqonaya xalka koobaad inuu heli karna wax weeye in la sameeyo seerayaal la xidho oo kale oo lagaga baxo xilliga abaarta sidoo kalena waxa jira goymin seminaaro workshops waxyaaba aan qabano waxaan soo jeedinayaa dadka hay'adaha joogo seminar Hargeysa Chess lagu qabto ama lagu qabto ambassador looma baahna waxa loo baahan yahay dadka tip top ay taabatay abaartu amaba maxaan ku dhahdaa isbedelka cimiladu in dadka loo tago beeriyamka dadka maanta la siinay in dadka wax loogu taro waa xalalka ugu haboon baan filayaa inay yihiin soo kala xigtay government policy iyo marka policy iyo rule iyo law la sameeyo dadku maxay yani officialska ama dawladdu maxay ka fikiri kartaa waxay ka fikiri kartaa in dadkan inclusivity wax la yiraahdo ay dadkan isku jiraan ilaa dad baa loo gaaraya go'aana dadkii go'aanka loo gaaray inay table-kii joogaan sidoo kalena xalal macquul ah ay keenaan talanta seerayaasha oo kale sanadkii lagu darsado wax la yiraahdo waxa jira blanka wadanka ama national blanka sanadka lagu darsado
intaas soo jeedinaya anigu inaba ka tagay Nairobi Summer School iyo shirarkan aad ka qayb gashaan maxaad ka faa'iidaysan maxaad dadka ku soo gudbisaan imika halkan aynu fadhino waxaanu fadhinaa climate awareness inaan dadka fariin gaarsiino waa waxa ugu yaran qaban karno markaanu ka qayb galno shir caalami ah inaan dadkii waxaanu soo faa'iidnay gaarsiin karno bulshada igu daawanaysa sida qaabka online-ka igu ila joogaba waxaan u soo jeedinayaa marka laga hadlayo qolayooyinkeena la isku dhaado East Africa wayna saameysay cimiladu waan ogahay haddana waxa jirta waxa ay caalamku ugu talagaleen magdhow wadan kasta oo ay cimiladu saameysay magdhowga waxaan idinka meeshan garan karaa GZF oo ah Green Climate Fund wax la yiraahdo Green Climate Fund East Africa deenu dhanahay kama doonano lacagtaas ama lacag la inoogu talagalay baa jirta meesha lacag lagu sheego waa inuu yaanama haddaba proposals baa la qortaa qaab baa loo mara insha Allah waan hadii aan maxaan ku raada waqti waxaan waan idin soo gudbinaya qaababka laakiin waxyaabahan ka faa'iiday inta uu meeshan garanaya kamid ah inaan wadankeenu isagoo East Africa kamid ah haddana aynaan wacyigeenu gaarsiisnayn inaynu magdhowgeena xataa doonano wax kale iska daay marka waxyaabahaas ugu yar inaanu kaba soo faa'iideyno magdhowgeena inuu meesha yaalo aad baad maasanta walaal su'aasha aanay aad ka tagtay waxa kamid ah ay ku weydiisay NGOs-kii government-ku sidee bay uga wada shaqeyn karaan hawlahan idil and it was inclusivity okay in thank table you ka lagu wada dhamaado okay thank you hodo waxa weeye horta waxa la yiraahdaa goor gaaban hadalkeena gaaban su'aalaha badankeeda walaalahay baa ka jawaabay anigu laba su'aalood haray baan filayaa inaan ka jawaabno walaashii magaceeda haddaan iloobay way iga raalahan doontaa waxay tiri salmi sidee baynu waxa weeyaan inagu inta shirar caalamiye tagi lahayn halkan qaar uga qabsan karnaa runtii waxaan oran karay markan inagu bislaano waxay wixii fahano ayaan halkan ka qabsan karnaa inagoon bislaan waxa weeyaan wixii aynaan faahsanayn haddaynu halkan ka qabsano wixii aynu qabsanaa waxba waxa weeyaan waxay noqonaya waxba kama ool marka horta inay inagu inta bislaano waxa weeyaan sida shirarka caalamka uga qayb galno sida loo negotiate garayo sida waxa weeyaan dadku u goostaan wuxuuga هني واحد كده واجد green fund واحد لهذا green climate fund لهذا GZF لهذا إنه واحد East African countries كوايد دونا بركات هاسو كل واحد كتوسسا موجنان تين موجن هي وحويان أرمها الله يريد يسبدل كعمله يسبدل كعمله كليا بعها لريرتين واحد شرت وحيابه فربدني موجيهين وحلا ينقول هذا يلا ينقول السبعة ينقول واحد تين لريرتي مستقبل كبري لكن تاسرنتي واحد أوران كريا وهذا وحويان أنا وحبة كشرين ما أنت هذا دوغ لهان ويدد قرمد لهاني إنك ما أنت سكله وحويان سياسيين تين يدد كانوا وحي نوجو شاكيان بريت هلا الذي المستقبل كأنك هسكله ومستقبل لسوخ الربا already وحويان أيه إنك ينسوقيا مركات هاس وحي دالينا سا إن تبرق سنة دانيرو إن كقيب قادنا شركة عالمكم حي شركة عالم كإن كقيب قادنا أدلستي واحد كسوف فائدة سا إن تبرق سنة هل كتاجن تهي إن تبرق سنة وحيابها كلام فدري ولا شيء سوى شيء زودي سي وحويان halkeebad amba sideebad jacaysheen u soo bandhigtaan waxyaabaha soo faa'iideen waxa jira aan caawa ka dhawaajinay intay daawan doontaba iyo intiinan soo hor fadhidaba inaanu qabanano dhalinyartii ka qayb qaatay Nairobi School Summer Camp inaanu qabanno experience sharing wax la yiraahdo isla markaana khibradihii aan halka kaliya kamaana soo baran waxa weeyaan fan in sida loo sameeyo waxaan soo baranay mitigationka hababkii loo yareeyay carbonka maadaama Afrika tahay waxa weeye wadamada Afrika oo dhan yihiin wadamada ugu yar ee cimilada khariba haddana yihiin kuwa ugu badan waxa weeyaan iyagoo ay ku dhacdo waxa weeyaan climate change-ku amba isbedelka cimiladu oo kuleylka ugu badan iyaga ku dhaco adaptation-kiisa waxyaabaha adaptation-ka la qabanayay marka waxyaabahaas oo dhan baan soo wadnaa hadduu Ilaahay ka dhigo waxa leeyahay naga degdegina waan idin soo soconnaa idinkaan idin maqannahay insha Allah waxa weeyaan si kasto aan uga qayb qaadan karano inaan waxa weeyaan wacyiga dhalinyarta uga bedelana waan uga qayb qaadanna aad baad mahadsantihiin aad bay u mahadsan yihiin Farax Hani iyo Hoodo waxaan filayaa jawaabihii aad filayseen inay bixiyeen laba su'aalood baa ugu muhiimsanaa idil iyo Salma iyo inantaa khadra ku xigta maxaa dadka sidee baynu u soo casuumi karnaa runtii dadka aan u tagnay anagu waxay ahaayeen dad u bisil yacnihii xataa u hamuun qaba u gaajo qaba inuu barnaamijyadani dhacaan waxaa laga yaabaa dadkaan u tagnay inay dadka qaar ba ku hadlayeen languages kale iyagoo Afrika un ah ay dadka qaar French ku hadlayeen marka la doonayo in dad la soo casuumo waa inaad haysid dadkan dad u dhigma
ma aha inaan anigu caabino dhalinyarta reer Soomaaliland laakiin marka hore horta waa inaan inagu bayskii ka dhisano fahanno waa maxay climate-ku fahanno waa maxay siyaasadan laga doodaya waxa jiray bishii labaad ee sanadkan shiraan ka qayb galnay oo la yiraahdo African Youth Leadership Diplomatic Conference kaasiba kama hadlayn isbedelka cimilada laakiin wuxuu ka hadlayay arrimaha siyaasadda waxaan u tagnay dhalinyar aad moodid inay sharaxan yihiin siday u doodayaan siday u hadlayaan siday waxa laga yaabaa imka dhalinyarta reer Soomaaliland khariirada dhan Afrika binaanay fahansan meeshaynu kaga jirno dadkaan u tagnay Afrika iska day America kala dhigayaan really marka laga hadlo markaynu imika baahida keentay waxa weeyaan hal shir markaad ka qayb gashid waxaad fahmaysaa halkaad adigu taagan tahay wadankaaguna halku taagan waxaad ku dhiiranaysaa inaad mid kale hadana raadisid kaasi hadana waxba kugu kordhinaya waxba bari ka maalin weyn soo gaadhana marba jirtay laba qof hal qof oo reer Soomaaliland u tagi jiray konton qof aan ku tagnay shirka hore bisha labaad idii sheeg kii imikana 100 iyo dheeraad baan ahay marka marba waxba kordhaya waxa laga yaabaa sanadka 2026 500 oo reer Soomaaliland inay tagaan waxa kale xusid mudan mar walba shir walaanu tagno dadka ugu badan waa dadka reer Soomaaliland wadamada qaar hal qof ka socda laba qof ma jiro wadan 5 qof ka socda Nigeria ugu badneed imka wadankan joognay anagu ba ka badnayn Ethiopia shirka hoosti garayso marti gelisay anaga ka badnayna marti ahayn Ethiopia lagu qabanay wadankeeda anaga ka badnayn reer Soomaaliland oo 100 iyo dheeraad ahayn marka waxyaabaha faa'iidada ah ee ku faa'iidna waxa kamid ah aqoon khibrad inaad ogaatid halka taagan yahay eenay wacigaagu wadankaagu waa sidee isbedelka cimiladu dadba si buu u saameeyay deemka Ethiopia roob bay hesha hadana way u arfati kareysaa way u qareentaa in ay u doodo maxay ahayd magdhowga iyo waxa ka dhacaya Afrikaba hadana roob bay hesha abaari kuma dhacdo waxba kuma dhacaan wadanba si buu ugu dhacay inagana marna abaar bayna haysata marna roob bayna haysta marka sida ay hooda sheegtayba mar walba teamka tagaa waxay sameeyaan in feedback ay sameeyaan dib dadkii wax ugu celiyaan waxa jiray iyaguna team la yiraahdo Sooyek oo iyagana aad halkan uga xuseeyo khadara ay nagala joogta teamkaas just waxay u sameeyeen cid lacag kuma siiso cid kuma dhiiri geliso hadana waxay u sameeyeen in dhalinyarada ugu sheegi lahayn sida safarada loo galo iyaga marka laga tago waxa jiray in la yiraahdo Cabdiqaadir Saabir oo isagana halkan aad uga mahad celinayo mar walba fursad biin la wadaaga ka aan imika idii sheegaya Africa Youth Diplomatic Leadership Conference kaasi sanadkan inagu soo bishiisa labaad buu dhacay durtaba uu soo galiyay page-kiisa hadad ka imika aad apply gareysid full funded buu leeyahay partial buu leeyahay self buu leeyahay full funded ka hadad bahlaysid waa lagu dooran karaa intaas qof laga soo dooran karaa saad u xareynaysid saad u weydiinaysid isaga teamkii hore u tagay ay ku xidhantay marka waxyaabo badan baa jiro laga faa'iideeyo in dadkii la soo hoosti gareeya waa inteena wax fahansan fan heli karta meel la geeyo heli karta markaas inuu dad keeni karana aynu wadankii yaanihi iib geen karana aynu oran karnaa waa kan ma aha un meeshan marka la taga xataa in lagaga hadlayo ajendaha loo tagay Ethiopia iska kaay iib geysay shirkii ugu dambeeyay Africa Climate Summit 2 COP32 baan hoosti gareynaa bidhahdeen you believe COP32 anaga hoosti gareynaa bidhahdeen inta markii hore video la shiday amazing ah dadkii dhan indhahoogii soo jiid marka weynaynu xataa de kun waxba hoos socdo weynaynu wax iibin kareyno markan aynu dadka soo casuumino marka weynaynu inagu marka hore noqono dad diyaara waxaan u heelan soo arkay si shirar ku dhacaan ixtiraamka wax walba garanaya dadkan sida loola dhaqmayo aad markaa u mahadsantiin waxaan filaynaa jawaabihi wada bixiyeen fariintaada ugu dambaysa farax aad iyo aad u mahadsan tahay deeqay kulli waxa la goor gaaban hadalkad gaaban oo in badan min hadlayno iska soo koobi doona kelmadeeda ugu dambaysa wax weeye waa mahad celinun horta marka hore si ilaahay mahad iyo manboo sugnaato inoo ogolaadeen in halkaas ku nimaadno inagoo caafimaad qabna mar labaad waxaan mahad celinayaa dhammaan tiimkiina deeqa iyo hoodo iyo hani iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha tiimka Action Area Global Platform waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiin noqon sorta ilaahay ba subhanahu wa ta'ala mahad iskale inoo suurta galiyay barnaamijkan sida ugu quruxda badda u qabsoomo mar labaad waxaan mahad celinayaa hay'ad Action Aid taasoo wax weeye suurta galisay mar walbana u doodaan baa u dhaqdhaqaaqda sidii dhalinyartu uga muuqan lahaayeen goobaha decision makerska isla markaana ay infoflu noqon lahayn arrin kasta oo khusaysan dhalinyarta mar saddexaad halkan waxaan baaq ugu darayaa dhalinyarta waxaan leeyahay dhalinyaroy mar walba waxa la inoogu sheekeeyaa inagu waxaan nahay dhalinyartii mustaqbalka laakiin ma nihin baan leenahay waxaynu nahay dhalinyartii maanta haddaynu maanta waxba qabsan weyno beritoolna waxba qabsan mayno waxaan leeyahay waxa weeyaan madalaha caalamka waxa weeyaan shararka caalamka ka qayb qaata hadday noqoto mid climate change hadday noqoto isbedelka cimilada hadday noqoto mid lagaga hadlayo waxa weeyaan whatever so adigu isku day dhalinyaro inaad ka mid noqotid dhalinyarta waxa weeyaan wadankaaga wax ka bedeli kara yaan lagugu sheekan dhalinyartii mustaqbalka tahay intaas la leeyahay assalaamu calaykum aad bay u mahadsan yihiin hoodo hani iyo farax oo barnaamijkan igu helinayay
ugu dambeyntii waxaynu leenahay aynu ka midho dhalino hadalka ficilka si aynu u dhisno mustaqbal cagaaran oo adkaysi leh insan kaga baxayna ugu dambeynha waxaanu mahad celinaa anagoo isku duuban dhamaantayo Action Aid waxaanu mahad celinaa Global Platform Somaliland waxaanu mahad celinaa Carre Edeg Media oo nu leenahay aad baad mahadsantiin thanks for Action Aid thanks for Global Platform GB Somaliland thanks Carre Edeg Media anagoo waliba caaw ka hadlaynay Global Week Action